maayirka cusub ee degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo dhawaan ay doorteen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama muddo kooban haya hogaaminta xafiiska maamulka degmada Boorama ayaa maanta si gaar ah ula hadlay TV-ga Raya TV horeyntii wax ka weydiiyay xaaladda ay ku sugan tahay degmada Boorama isagoo arrimahaas iyo arrimo kala duwan ka hadlayna waxa uu tilmaamay degmadu kulay marka horena baahi baan kaga tagay haddana baahidii wali way jirtaa way taala وانا فيلي يدي إن سوق جاري يدو ولي قبيعة وانا أرينا هذا أنكو جود الجنة كله وحي أن قام كرنا إيطال كيو إن قبلنا الدولة هنا وحقوق مهمتين دولنا وحكا قبلنا وحكا مذا وحوين إن administration كنظام كياسي سب كسيدي سوصل نقطه إيوه إن أدي جيب الشدة إن حوجنو إن أو يجوه رئيس هو دوينكو توجه رئيس أنا يتهو دوينك واقع سليمان waxaad mar kale ku soo noqotay xafiiska muddadii aad ka maqnayd maxaa degmada Boorama ka qabsoomay maxaa ka qabiya wallahi anigu de waxay inda arkayaan bay ilka gooyama tira Soomaalidu labada wada anigu nimi wadadani Saban Road iyo qaybta qabyada ahayd ee qabyada kaga tagay la dhameystiray labadaas ka qabsoomay degmada Saleebaan intaana talada ku soo noqon dib u doorashada golaha deegaanka waxa jiray xurguf aad u adag oo loolan golaha deegaanka Boorama ka dhexdhacday oo dheeraysto ku xigeenkaaga yaha ku loolamay haba say doonto haba u dhacday xisbiga kulmiyaha mar kale degmadii Boorama qabtay ma la waayay mas'uul kale oo kaaga firfircoonaada xisbiga kulmiyaha dhexdiisa xildhibaanadii golaha deegaanka ee xisbiga kulmiyaha ka soo baxay way jireen xildhibaano kala day waliba aniga iga aqoon badan way jireen laakiin inta yar aniga lagu tuhmay wax weeye war maadaama markii hore aad meesha aqoon u lahayd oo xogaa godad badan fahantay inta anaga faham dambe ay nagu qaadan lahayd adaa meesha fahmay aadan kugu riixina anigu waan rag baa ma door bidayna meesha tagaan oo inta hore u ololeynay laakiin markii dambe waa laga bato waxa la yiri war aadan ku garan baashan dambe marka lagu garto qurux badan anu campaign ma gelin in lagu gartay baasha qurux badan asxaabtaydii iyadan xataa xisbiga loo eegin kuwa xataa xisbiyada kala aha ayaa yiri war intii waqti yar baan joognaaye aan ismaydne adaa meesha soo bartay sida la isku maydhaye meeshii noot baasha hor saasan bay ahayd xisbiguna waa xisbiga xaakimkii xildhibaanada golaha deegaankana xisbiga ugu badan xisbiga kulmiya ugu badan marka that's why ay xisbiga kulmiya mar labaad ugu soo noqday aan ugu soo noqday anoo kulmiye ah laakiin xildhibaano kale oo iga aqoon badan oo meesha iga sii haboon way jireen anigu de bariyahan waaban ganacsi iyo meelaha kale ka marmaray laakiin iyaga ii yeero yiri bahashi hadda anaga noo garatay anaguna adaa kugu soo riixin saasay baa waan gartay maayirkii ka horeeyay Maxamed Xuseen Maydane hanti dhowrka guud ee Soomaaliland baa soo eedeeyay waxa lagu soo eedeeyay hanti in golihii deegaanka degmada Boorama muddadii uu joogay oo lunsaday warar kale oo madax banaan oo soo baxaya waxa taasina ay sababtay in xilka laga qaado warar kale iyaguna madax banaan waxay sheegeen in xilka qaadistiisa uu intan xilkuna wareejin lacag gaarayso 600,000 oo dollar oo deymahaasi ma jirtaa lagu wareejiyay oo ay wasaaradda maaliyadda ilaa imika lacagahaasi ay leedahay way jiraan oo deymuhu way jiraan oo TV-ga baan ka sheegnay deyntu way jirtaa lacag mashaariic dib u dhacday ay lahaydna way ku jiraan account-ka oo masha Allah mashaariic dib u dhacday lacagaheegu way yaalaan deyntuna way jirtaa oo imika tii godkii qashinka lacagtiisii waa tii dib u dhacday waxa kale oo markaa iyaduna meesha taala tii kale iyaduna kawaankeeda hadda ka dhawaajisay deyntuna wax jira oo way taalaa runtii lacaga badan oo isgaargaadho waxa jira wasaaradda maaliyadda in cashuuraha bariga nagu lahaayeen oo iyadoo soo aad u fara badan kulay iyo imsajada iyo way jiraan lacago taas waa wax waaro wax qarsoomi kara ma deyntu wax qarsoomi kara ma way jiraan deymo kolka golihii deegaanka degmada Boorama haddii deyn uu sida loogu leeyahay maxaad adigu isleedahay waad kaga tagi doontaa muddada aad xafiiska joogto waxaan kaga gudbi karaa hawsha way aragnimadayda inaan manage gareeyo inta yaraan hayo inaan manage gareeyo deyntana wixii macquul ah waa laga bixin officer-rankeeda hawlaha socda waxaan macquul ahayna de waxa weeyaan hawsha ka muhiimsan baa ayaa la horeysiin waxaan kaga gudbayaa inaan sida ugu suurtagalsan ee bulshadana wax loogu qaban karo waxa yar ee gacanteeda soo galana aynu u farsamaysan lahayn
ayaanu kaga gudbaynaa insha Allah anagoo marka gacmaha haysana birigoona waan kala soconay oo waxaan ahayn iyo badan oo deesuda garab socda ma garanayso doorashada hore sibay nooga dhacdo xoogaa isxambaar baan ku nimay laakiin hadda waxaad moodaa inay bahasha hoos aan uga dhacno arrimuska saxan yihiin cagtana la isla helay runtii marka la eego Saleebaan Xasan Xadi bulshadu waji hore kugu taqaanay degmada intii aad joogi jirtay maayar xiin badan magaalada maayarkiiba halka maraya maayarkiiba sida sameeyay magaaladu sidaas ahayd muddadii ka dambeeyay magaaladu siyaasad ahaan yara degtay baa la muddada xilka ka maqneen in siyaasadda magaaladu ay degtay baa la ay bulshadu ay qabtaa iminka ma sidii baad ku soo noqonaysaa xiinka badnaa misa hadda maamul miirsaday baad noqonaysaa turjumaada laga khalday xiin ma waa shaqo badni bay ahayd dadkeenuna ma jeclaan shaqo badan iyo wax la qabto ma jecla marka waxa weeye kol hadii gobolka dhalinyarada inta badan ay iska bila camal yihiin qofka dhaqdhaqaaqaya waa in dhaliilo loo sameeyo shaqay ahayd shaqaan ku soconay waana wadnay tii waxa weeyaan imika dambido karnimo tii iyo lagu sii darsaday waliba laakiin shaqada iyo dhaqdhaqaaq uu soconay meel aanu dhaqdhaqaaq jirin de waxa weeye dhaqaale iman maayo soo jir maayo hadii berigi dhawd magaalada digtay amsa dhaqaalihi hadana dhaqaale baa mid jiray cid wax cunaysa lama arag cid wax qabanaysan lama arag de waa la arki lahaa marka waxa weeye qofka iskala socotaa bahashi arsaaqad iyo xiinku marka in la socdo waa waajibada qaar badanna wax helaan degmada iyo dadkan loo shaqeeyo Ahmed Riyaal Tire Raya TV